17 bishan Sebtembar arbacadii maalin ka hor sanadka 2025 waxaa taariikh cusub laga qoray gobolka Bariga Dhexe iyo Aasiya markii Sacuudiga iyo Pakistan ay kala saxiixdeen heshiis difaac oo istiraatiiji ah. Heshiiska looma arkin war-saxaafadeed siyaasadeed oo hadal ku eg waxa loo aqoonsaday qandaraas dhab ah oo sharci ah. Haddii midkood la weeraro waxaa loo tixgelinayaa in labada dal Pakistan iyo Sacuudiga la weeraray. Waa fariin cad oo aan lahayn mugdi, taasoo ka dhigan in labada dal ay isku arkaan hal dal oo keliya marka ay timaado difaaca. weerarka Israa'iil ay ku qaaday Dooxa 9 bishan Sebtembar wuxuu ahaa ififaalo dhaliyay in Sacuudiga uusan ku sii jiri karin siyaasaddiisa qarsoodiga ahayd. Waxaa qasab noqotay in waxa lagu hayay xagga hoose loo soo saaro iftiinka, isla markaana iskaashiga Pakistan lagu caddeeyo dunida horteeda. Hoggaanka Sacuudiga Mohammed bin Salman dhaxal sugaha sidoo kalena ah ra'iisul wasaaraha Sacuudiga ayaa mar kale muujiyay in Sacuudigu uu leeyahay awood uu go'aan degdeg ah ku gaari karo, isagoo qaadanaya tallaabooyin aan lala sugin tobanaan shir iyo hadallo maran. Haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskan? Maraykanka oo damaanad amni siinayay Sacuudigana muxuu heshiiskan uga dhignaanayaa saamaynta uu ku yeelanay Hindiya oo muddo dheer ku hawlneyd inay dhisto xiriirka adag ee Riyaad? Warbixintan ayaan arrintaasi ku qaada dhigi doonaa. Waa Khamiis 18 bisha Sebtembar sanadka 2025. ku dirso baysi lacagahaaga oo si degdeg ah u helaan ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo ugu dhacaysa telefoonkooda gacanta sida EVC, SAD, Sahal, MTN iyo M-Pesa. kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. heshiiska difaac ee si wada jira u saxiixayn Sacuudiga iyo Pakistan wuxuu daboolayaa dhammaan qaybaha awoodda militariga, taasoo si cad u muujinaysa in awoodda nukleerka ee Pakistan ay si dadban markaan ugu fiday Sacuudiga. Sanado badan ayaa jiray warar sheegaya in Sacuudigu kaalin ku lahaa maalgelinta barnaamijka nukleerka ee Pakistan, balse arrintaasi mar walba waxa loo arkayay mala awaal. Haddaba maanta waxa qarsoonaa ayaa loo bedelay xaqiiqo, waxaana cad in Pakistan iyo Sacuudiga ay wadaagaan hal xisaab oo ku dhisan awood ka hortag. Israa'iil oo muddo dheer ku tiirsanayd awooddeeda weerarada degdega ah waxay la kulantay xaalad cusub. Ma aha in Sacuudiga la siiyay gantaalo nukleer oo si toos ah u taagan, balse micnaha heshiisku wuxuu ka dhigan yahay in Israa'iil aysan mar dambe isku hubi karin weerar kasta oo ay qaado. Waxaa jira suurtagalnimo ka hortag nukleer oo dadban, taasoo caddaynaysa in weerar kasta uu noqon karo mid la kulmi kara jawaab adag oo aan la filayn. Iiraanna si taxadar leh ayay arrintan u eegaysaa, iyadoo arkaysa Pakistan oo si cad u soo bandhigtay awoodda ay hore u qarinaysay. Maraykanka ayaa noqday kan jahwareerka ugu dheer dareemaya. Muddo dheer waxay Washington ku faantay inay tahay daboolka difaac ee Khaliijka, iyadoo ku tiirsanayd heshiisyadii boqorrada ay saxiixeen ee ilaalinta Maraykanka. Laakiin heshiiskan cusub wuxuu meesha ka saaray fikirkii hore. Sacuudiga hadda wuxuu leeyahay dhowr lakab oo difaac, xulafada reer galbeedka, xiriirka uu la leeyahay Shiinaha iyo Ruushka, iyo weliba daboolka difaac ee uu ka helaya Islaamabad iyo Aasiya oo Pakistan ay hogaaminayso. Arrintan waxay Maraykanka gelisay xaalad jahwareer iyo cabsi ah, iyadoo la dareemayo in kalsoonidii iyo saamayntii hore ay luntay. Hindiya iyaduna waxay ku jirtaa xaalad aan fududayn. Sacuudigu wuxuu xaqiijiyay inuu weli yahay saaxiib xooggan, balse isla waqtiga wuxuu saxiixay heshiis ka dhigay in dagaal kastoo Hindiya iyo Pakistan dhexmara uu saamayn ku yeelanayo, isla markaana Hindiya ku qasbi doona inay ka fakarto xiriirka ay la leedahay Sacuudiga, maadaama weerar kasta iyo dagaal kastoo lagu qaado Pakistan uu ka dhigan yahay mid taabanaya Sacuudiga. Waa xaalad adag oo ay qof fuushan laba faras oo iska soo horjeeda, balse Riyaad waxay ku sharad gashay awooddeeda siyaasadeed iyo madax bannaanideeda. Turkigu wuxuu heshiiskan u arkaa fursad, taasoo ah inuu xoojinayo saamayntiisa Khaliijka, uu helayo suuq uu ka iibiyo hubkiisa, iyo inuu yeesho meelo uu kala shaqeeyo la dagaalanka Iiraan iyo Israa'iil. Khaliijka intiisa kale wuxuu qaadan doonaa doorkiisa, balse albaabku uu ka bilaabaya waa Riyaad. Sidaa darteed Sacuudigu wuxuu noqday xarunta ugu weyn ee go'aamisa amniga gobolka Bariga Dhexe. Pakistan awooddeeda kuma koobna nukleer oo keliya, waxay leedahay ciidan aad u ballaaran, khibrad dagaal oo qoto dheer, iyo taariikh dheer oo iskaashi oo ay la leedahay Sacuudiga. laga bilaabo tababarka kumanaan askari oo Sacuudi ah ilaa joogitaanka ciidanka Pakistan ee gudaha dhulka boqortooyada. Waxaa intaa dheer malaayiin shaqaale Pakistan u dhashay oo ku nool Khaliijka, kuwaasoo dhisay xiriir dhaqaale iyo bulsho oo adag. Sidaa darteed Pakistan waxay siinaysaa Sacuudiga dabool difaac oo dhammaystiran, mid ciidan, mid sirdoon iyo mid dhaqaale iyo bulshaba leh. Halkaas ayaa noqotay halka uu ka bilaabanayo mashruuca naataha ee Carabta, kaas oo si cad ay bannaanka ugu soo saartay Sacuudiga markii heshiis dhammaystiran oo difaac ay la gashay Pakistan, kaasoo la mid ah qodobka 5 ee axdiga isbahaysiga NATO oo dhigaya dhammaan xubnaha isbahaysiga in nidaamkooda difaacu yahay hal mid,
weerar kastoo mid ka mid dalalka lagu qaadan uu yahay mid lagu qaaday dhulka NATO. Si taa la mid ah, heshiiska Riyaad iyo Islaamabad wuxuu noqday mid dhaba wax ku ool ah oo degdeg loo gaaray. taasi waxay keenaysaa Sacuudiga ayaa doortay Pakistan oo kaliya. ma raadinaysaa guri casri ah oo si degdeg ah uga iibsatay Nairobi, Kenya? ma doonaysaa dabaq sare oo leh muuqaal cajiib ah iyo adeegyo dhammaystiran? ama waxaad xiisaynaysaa fiilo deegaan? waxaa ku yimid waqtigii aad riyadaada xaqiijin lahayd. shirkadda Raad Property ayaa ku haysa xal kasta: dhismaha iyo guryaha iibka oo tayo sare leh, ku habboon qoysaska, ganacsatada iyo maalgashadayaasha. isla hadda kala xiriir shirkadda Raad Property taleefanada iyo emailka shaashada ka muuqda. halkii uu ka dhisi lahaa isbahaysi carbeed oo balaaran. jawaabtu waa in waqtigu uu yahay mid muhiima. Riyaad ma aysan rabin sugid dheer iyo hadallo maran. waxay rabtay dabool tayela oo degdeg ah, isla markaana iyadu ay go'aanka iska leedahay. Sacuudigu albaabada ayuu furay, balse cid kasta oo rabta inay soo gasho waa inay ku gashaa shuruudaha Riyaad, ma ahan shuruudihiisa. tanina waa awood ay Sacuudiga ka helayso hadda inay haysato dabool difaac oo isku halayn karto. halkaasna wuxuu Sacuudiga gacmihiisa ku haysanayaa kaarar cadaadis, ma ahan in markan la wajahayo boqortooyadii maamulkeeda uu Maraykanku gacanta ku hayay marka laga hadlayo difaaca. fariinta heshiiskan ayaa mid cad. cadowga ha ogaado in tijaabada amniga Sacuudiga aysan ahayn mid fudud. xulafada ha ogaato in albaabku furan yahay, balse uusan weligiis furnaan doonin. shacabka gudaha ha ogaadaan in siyaasadda amniga ee lakabyada aysan ahayn halku dhig ee ay noqotay dariiq rasmi ah. Israa'iil waxay isku dayi kartaa shirqool, Hindiya waxay adeegsan kartaa cadaadis, Iiraan waxay ku tiirsanaan kartaa isbahaysi, balse Sacuudigu wuxuu leeyahay dabool difaac oo cusub oo xisaabta cadow kasta ku khasbaya in uu 2 jeer ka fikiro. Shiinaha wuxuu u arkaa fursad uu ku ballaarinaya saamayntiisa. Ruushkana wuxuu la dhoola cadaynayaa inuu arkayo saamayntii Maraykanka ee khaliijka oo dilaacaysa. wixii horey loogu hayay qarsoodi iyo hadal hoose ayaa maanta loo soo bandhigay dunida. weerarkii Dooxa wuxuu jebiyey qaabkii qarsoodiga ahaa. Sacuudigana wuxuu bannaanka u soo saaray go'aamadiisii qarsoonaa. fariinta ay cadowga fahmi doonaan waa in aamusku uusan ahayn siyaasad dambe, balse uu yahay ku dhawaaqis ka hortag oo gadaal ka wadata dabayl nukleer. tani waa marxalad cusub oo gobolka Bariga Dhexe u galay, mid ku qotanta awood muuqata oo dib aan loo celin karin. maanta waxaa cad in Sacuudiga iyo Pakistan ay noqdeen hal awood oo midaysan, taasoo dib u qortay xisaabta gobolka iyo caalamka. su'aasha kaliya hartay waa yaa diyaar u ah inuu wajaho dabaylaha ka dhashay heshiiskan? yaase diyaar u ah inuu aqbalo xaqiiqda cusub ee amniga ee gobolka? heshiiska cusub ee Sacuudiga iyo Pakistan wuxuu calaamad u yahay in xiriirkii Maraykanka iyo Sacuudiga uu galay marxalad cusub oo mugdi badan. muddo 10 sano Riyaad waxay ku tiirsanayd ballanqaad amni ee Washington, gaar ahaanna heshiiska Queens ee boqortooyada ay ku siisay hoos gabaad ciidan iyo difaac. laakiin maanta Sacuudigu wuxuu caddeeyay inuusan mar dambe ku filnayn damaanadda amni ee Maraykanka oo kaliya, balse uu doonaya lakabyo kaloo difaac ay ku jirto Pakistan oo leh awood nukleer ah. tani waxay Maraykanka ku ridaysaa 2 xaaladood oo isbarbar socda. midda koowaad waa in Maraykanku ay arkayaan saamayntoodii oo ku sii yaraanaysa gobolka Bariga Dhexe. midda labaadna waa inay ogaadeen in Riyaad ay noqotay dal awood leh, awoodna u yeelanaya inuu doorto cidda uu isku xirayo. Washington mar dambe ma aha damaanadda amni ee kaliya ee Sacuudiga, taasoo macnaheedu yahay in kalsoonidii iyo xasiloonidii uu ku dhisnaa xiriirka labada dal u dhaawacmay. si kooban, heshiiskan wuxuu calaamad u yahay in Sacuudigu uu ka soo baxay ku tiirsanaantii kaliya ee Maraykanka, isla markaana uu galay marxalad madax bannaani cusub oo ku dhisan isbahaysiyo badan. waxaa laga yaabaa inuu noqdo bilowga in Washington iyo Riyaad ay dib u qeexaan xiriirkooda istiraatiijiga ah. marka laga soo tagana in Pakistan ay leedahay awood nukleer ah oo ku filan in ay noqoto isbahaysi la isku halayn karo. Sacuudigana marka la joogo xididka taariikheed ee kala dhaxeeya Pakistan waa mid qarniyo jiray, ilaa lagu xanto amaba la sheego in Sacuudigu uu ahaa cidda bixisay malaayiin iyo dollar badan oo sabab u noqday in la dhammaystiro mashruuca nukleerka ee Pakistan, xilli mashruucaas uu wajahayay cadaawadda Hindiya, Israa'iil ilaa iyo reer galbeedka. balse adkaysiga iyo qarsoodiga Pakistan ayaa sabab u noqday maanta inay noqoto quwad nukleer ah. Sacuudiguna wuxuu doonayaa maanta inuu bannaanka u soo saaro lamaanihiisa nukleerka ku hubaysan. laakiin hal arrin waa mid aan laga tegi karin, taasoo ah iskaashiga Pakistan iyo Shiinaha. waxa uu siinayaa Sacuudiga awood kale. Sacuudigu wuxuu helayaa isagoo Pakistan dhex mari kara awoodaha difaac iyo weerar ee Shiinaha. joogitaanka Pakistan ee gudaha Sacuudigana ama iskaashiga difaac ee Sacuudiga iyo Pakistan waa wax u dhigma in Shiinuhuna halkaa joogo. tanina waa Riyaad oo helaysa 2 lakab
oo faa'iido u leh. Waa iskaashiga ay la gashay Bakistan. Bakistaanna waxay soo waaridaysaa hubka Shiinaha oo ay adkaan lahayd Sacuudigu inay si toos u raadsato. Markaana waa xilliga la filanaya in nidaamyada difaaca ee Shiinaha laga heli karo gudaha Sacuudiga, taasi oo madax bannaani siinaysa Sacuudiga kana saaraysa ku tiirsanaantii Maraykanka oo beenooday markii la weeraray Dooxa. Markaas oo nidaamyada difaaca ay ilaalin waayeen magaalada Dooxa, taasina waxa ay hurdadii dheeraa ka soo kicisay oo soo baraarujisay khaliijka. Laakiin Sacuudigu ma sugin waqti dheer, wuxuu qaaday tallaabo dhaba, taas oo noqotay karti uu kaga dheereeyay dalalka kale, albaabna ugu furay in aan mar damba waqti lagu lumin karin shirar iyo hadallo maran.